xildhibaanadii igu horreeyay tacsida waxaan aad uga xumahay ilaahay subxaanu qaadir ahaana aan uga baryaa inuu u naxariisto dadkii sida xaqdarrada ah halkaa loogu laayay oo labada jeer ahayd labada meelood waxaan tacsi u soo jeedinayaa dadkii ay ka dhinteen samir iyo iimaan allah ka siiyo waxyaalaha la yaab kale waxa weeye gaalkacyo anuu reer gaalkacyood baan gaalkacyaan ku dhashay iyadaa dadkeedu isu daraan jiray dadka Soomaalida oo meelaha kale gobolada kale ka yimaado uma ay daraan jirin waa xaalad cusub weeye iyaga isleen jiray oo la kala qaban jiray oo dhuftu dhex u jirtay waayahan inkastoo ay roonayd arrintaani waa arrin cusub oo khatar ah oo loo baahan yahay Soomaali oo dhan annagoo inaan ka hortagno waxaana la rabaa inta emotionalka ah caadifada markii laga tago in si caqli ah loo wajaho kow waxaa la samaynayaa dadkii dambigan gale horta waa la soo qabanayaa kaliya maaha in la soo qabto oo la ciqaabo waxaa la ogaanayaa waxaani meesha ay salka ku hayaan waayo waxaad ogtihiin waayahan magaalada gaalkacyo garoowe goboladaas dhexe waxaa ka dhacayay dambiyo aanan hore u arag gabdho Soomaali oo la kufsado la gowracayo siqir la gowracayo gabdhaha la kufsanayo يعني waxyaalo cusub weeye wax lagu cusub weeye waa istaraatiiji cusub istaraatiijigaas yaa degay marka yaa ka dambeeya dad Soomaaliya fulinaya waxaan idin sheegayaa 1990kii ilaa hadda 30 sano ka dambeysay 30 sano ummadda Soomaaliyeed waxaa boskiisiyay oo dhibaatooyinkii ka dhacay waqtiga hogaamiyayaal fiican oo ina ka dhaqmaynaan waayo dib u heshiisiin runa oo hoos ka bilaabato kor aada lama hayo dib u heshiisiin karo oo niman raba inay xukun wada qabtaan oo gobolada ka wada yimaadaan haday rabaan oo yiraahdo dawlad baan nahay oo insaa ordo maahane lama hayo hoos grassroots sidii South Africa oo kale dib u heshiisiin ka bilaabato lama hayo marka arrintaas waqtiga uu dadka heshiisiyay baa la rabaa in la baabi'iyo oo lagu soo celiyo oo la xasuusiyo nabaradii hore dib heshiisiintii taanku keenay inay baabacdo dib in loogu marka halka waxba laga sameeynaya xagga waxba laga sameeynaya taasi dad bay kicinaysaa marka annaga inay ina kiciso qabiil ahaan lama rabo waxa la rabaa Soomaali ahaan inay noo kiciso oo qof kasta Soomaaliya uu ka xumaado talaabana ka qaado anigu waxaan ka digayaa baarlamaanka kani baarlamaan Soomaaliyeed weeye kulligeen hal doon baan saaranahay shacbiga Soomaaliyeed oo dhan baynu wakiil ka nahay yeynaan annagu dhexdeena isu muujinaan qabaa'il u kala baxayno markaas baa leena ka adkaaday markaas baa kan dambiilaha ahay wuxuu rabay oo dhan u fuleen markii dawladda dhexo dadka difaaci lahayd ay u kala baxdo qabiil arrintaas aan ka digayaa waan ku raacsanahay in baarlamaanku muxuu ahaa u qabto guddi waxaan kaloo ku dhiirigelinayaa dawlad goboleedka Galmudug iyo dawladda dhexaba oo muxuu ahaa fulinta inay arrintaas si midaysan uga hortagaaneen la maalgeliyo sidii loo soo qaban lahaa dadkaas wixii waxaan ku kalifayna interrogation inta la sameeyo ilaa meesha u dambaysan la qodo la soo ogaado marka haday tahay mu'aamarad qaran wayba tahay iyo in dadka la isku diro meesha ay wuxuu ka soo burqadeen ma aha gacan ku dhiglaha kaliya meesha arrintu ka socoto way bari bay sameynayaan saad damay sameynayaan saakun bay sameynayaan meesha arrintu ka socoto marka dambe inaan target gadeeno ogaana loo baahan yahay arrinta way arrinta muhiimka oo waxaan lagu joojin karaa waa maadsantiin guddoon Ahmed Taab